على حر مرايد مذوب وقشني مرايد عدانا وقشضو ما يرموجا إنه دمانة يا موجا على حر إنه دمانة يا موجا baarlamanku xildhibaanadu inay dhimanayaan ma oga waxaan kala kulmay dhibaato badan iyo cadceed igu dhacda iyo aniga oo aanan biyahaysan miyaa lagu sii deyn waayay waa la sii deyn waayay waa la imilad hore kuma lagu sii daaway maayirmooga lagu sii deyn maayirmooga waa la sii deyn waayay wasaaradda shaqagelinta waan tago waa la sii deyn waayay waa la imilad hore maayirka caasimada waxaan ugu baaqayaa maadaama oo xidhiidh wala lahaydeen Mustafa Godane oo imika caasimada leedahay xashiish baan ka hagaajiyaa nafdan oo go'day adiga ilaahay uu ku weydiinaya duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana mehelin dadaala banama arag taliyo xididii damqada dadkana ku malihi walaal waxaanu u hoydaa darbiga dawadayaal waxa bilaabmay xiliyadii roobka waxa hadda roobku ka da'ay caasimada Soomaaliland Hargeysa iyo dhammaan gobolada dalka haddaba xiliyada roobka waxa dhibaato weyn ay soo wajahdaa caruurta darbi jiifta kuwaasi oo roobka kala kulma caqabada ay kamid yihiin inay waayaan meel ay seexdaan cunto la'aan iyo waliba sidoo kale duruufo fara badan haddaba caruurtaasi iyo waliba sidoo kale dhibaatooyinka ay wajahaan xiliyada roobka waxaan ka wareysan doonaa afayeenka darbi jiifta Soomaaliland Xuseen Mandela ugu horeyn soo dhaw baan walaal u dhowahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle maadaama xilli roobabkii lagu jiro oo caasimadii ay ka da'ayaan roobkii galin hore ilaa galin dambaba goboladiina ay aad uga da'ayaan marka caafimaad darro ayay ku noqonaysaa homeless childrenka iyo darbitiifta yaryar ee suuqyada magaalada Hargeysa hooylaantu ay haysato ee darbitiifta ah ee suuqyada magaalada Hargeysa ku daadsan iyo dooxa aad arkaysa ee bataaxa ah ayaan uga baqay inay daadku la tago ama u qaado marka bal halkan yaad fariin uga diraysaa aad isleedahay mas'uuliyad bay ka saaran tahay caruurta darbitiifta Horyaal TV ayaad aad baad walaal u mahadsantihiin wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqagelinta Soomaaliland cali xirxor ayaa la keenay Mustafa Godane iyo Hindagaani ayaa kala wareeg ahaa oo wasaaradda soo maray liisas iyo program homeless childrenka loogu tala galay iyo sawirro kombiyuutarada lagu shubay wasaaradda ayaa la iga qaaday maadaama anigu afayeenkii ahay dibta iga taala caasimada hadii ilmo la dakhro iyo hadii isaga dhaawac ku imaadaba aniga ayaa la isoo doonta oo la idhaahdaa afayeenkii nala doonta marka waxa weeyaan roobabkani waxay keenayaan caafimaad darro gaajo iyo meel ay seexdaan oo ayna hooy haysan xaruntii Maxamed Mooge ciyaal xaafad baa degan darbitiif ma degna waliba waxa uu qaabilsan caasimada marka la eego Maayir Mooge oo isaguna shaqaalad hawlkar ah oo waaya araga leh marka shaqaalahaasi inay ilaaliyaan backgroundada dooxa ee dadku soo marayo inay homeless childrenka ay ka ilaaliyaan ayaan walaal halkan ku soo koobaya waayo darooga ay cabayaan backgroundadaasi waxay saameyn adag ku yeelanaysaa xiliyaha roobabka inay duruufo adag iyo gaajo iyo nolosha oo hadda xaalad adag lagu jiro waxaan ugu baaqi lahaa golaha baarlamanka iyo wasaaradda arrimaha bulshada waxa weeyaan boroseerkooga way adkeeyeen ina ilaahayba subxaanahu wa tacaala adduunyadan waa laga tegayay inay ama miisaaniyadda qaranka homeless childrenka loogu talagalay ay halkaa ku masaxaan ama inay dar alla ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagu ilaahay weydiinayay si fiican ay u shaqeeyaan oo waliba cali xor muraayad madoob uu gashanayay muraayad cadaana uu gashado oo uu arko homeless childrenka ku dayacan suuqyada magaalada Hargeysa isaga maxaad ugu baaqaysaa maayirka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge maayirka caasimada waxaan ugu baaqayaa maadaama oo xidhiidh wala lahaydeen Mustafa Godane oo imika caasimada leedahay xashiish baan ka hagaajiyaa nafdan oo go'day adiga ilaahay uu ku weydiinaya homeless childrenku lastig iyo xabag bay cabayaan dooxii bay ku dhex nool yihiin hadday nafi dhimato ilaahay aad u aakhira ku weydiinaya baan lay duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana mehelin dadaala banama arag taliyo xididii damqada dadkana ku malihi walaal waxaanu u hoydaa darbiga
ayda dacalkayga taal ayaa hadda warsigay baray darxumo badan baan qabaa tubkayga waxaa ku shidan dabku waayuhu isuray hal doora mar baan lahaa damiir tegan baan lahaa inaan dadka caawiyon digitoor noqdo waan jeclaa waxsee la dekaamaya dantiyo waayahay xidhay dulliga nolosheen ku jiro dadaydu markay tagaan dugsiga iyagoo qurxoon ayaan qudha deeqmi helin farxadda waan kala didnaa waxaan gashadaa dirays maryaha duugin qubtan duxiyooyigan ma cuno tugaag waxaan qaybsanaa hambada aadaadisaan barbadaacun u go'ay markay waayin dabiibi qarbidhaxamuu dilen tufaankiyo qabowga daran barbaadad soo rogmaday habeen dumayuu la tegay naftooda barbaabad markay dunidii naceen aqoon-yahana maadarsan xallada darbi jiif ku yaal digri culimada ugo dar alleenooguma hadlan dastuurkuna uuna gabay qoraalkuna uuna digay dadweynaha uma bandhigo ciilkiyo dacaskaana dhibay way mandaleega ma la kulantay bal wasaaradda shaqagelinta iyo weliba sidoo kale bal maayarka caasimadda oo ma kala hadashay arrintan roobaboogan iyo weliba sidoo kale dhibaatada ay kala kulmaan derbi jiiftu walaal alxamdulilah ilaahay baa horta mahadle dadkan kibraaniyad iyo isla weyni iyo qab baa saaran adduunyadan iyo cidhiidhigeygan iyo inaa la dhimanayo ma oga maayir mooga inuu dhimanayo ma oga cali xorxor inuu dhimanayo ma oga baarlamanku xildhibaanadu inay dhimanayaan ma oga waxa weeyaan qof walba broseerkii iyo wasaaraddii iyo dowladdii hooseba waan tegey broseer adag baa meeshii la dhigay meeshu ma madaxtooyaa walaal macaan adaan ku weydiinayay aqliyan markaan eego oon afhayeenkii darbitiifta ahay oon broseer iyo sitam aan ugu tegey meeshu waxay noqotay madaxtooyo oo broseerkii hore waa laga bedelay bal ka warran ilaahay baan kugu dhaariyey marka maxaad kala kulantay waxaan kala kulmay dhibaato badan iyo cadceed igu dhacda iyo aniga oo aanan biyahaysan miyaa lagu sii dayn waayey waa la ii sii dayn waayey waa la imalotig hore kumaa lagu sii dayn waayey maayir mooga lagu sii dayn waayey maayir mooga waa la ii sii dayn waayey wasaaradda shaqagelinta waan tago waa la ii sii dayn waayey waa la imalotig horay anigoo muwaadina oo dalkan u dhashay oo afhayeenkii darbitiifta ah ayaa weliba la imalotig horay bal ka warran ilaahay baan kugu dhaariyey marka waxa weeyaan waxa ayaan darraa oo nasiib darraa inaad inunkuna aad dhiman doontaan anna aan dhiman doono xisaabina way dambaysaa ma fahantay yaa hadduu guga kuu kadhaa gabow mooye ku talin garaad iyo waayo arag dadkan ila wax ma dhaamaan geed